رئيس الوزراء حكومة فدرالك Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay ammaanka caasimada wuxuu la qaatay maamulka gobolka Banaadir. Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan xalay la qaatay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, sareeyaasha iyo saraakiisha ciidanka booliiska waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Bashiir Cabdi Maxamed. kulankan ayaa looga hadlayay howlaha ammaanka caasimada iyo sidii loo dardargelin lahaa waxaana kulanka aragtiyo kala duwan oo amniga ku saabsan isku dhaafsaday madaxdii ka soo qayb gashay iyadoo lagu ballamay in ammaanka mas'uuliyad adag la iska saaro loona naxariiso dadka shacabka ah. Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo hadal dheer ka jeediyay kulankaasi ayaa ka hadlay ahmiyadda amniga Muqdisho, ilaalinta hantida ummadda, sare u qaadista kalsoonida shacabka, isagoo sheegay in si dhab ah la iskula xisaabtami doono haddii ay timaado dulduleelo xagga amniga ah. waxa ugu horeeya oo la ka rabo inaan shacabku qabanana waxay tahay inaan mas'uuliyadeena gudashadeedana waxa ugu horeysa inaan amniga magaalada wax ka qabanno. waa garan karaa inaad 24 saac shaqeysaan ama gudoomiye degmo ha ahaado ama taliyaal ha ahaadaano ama dhammaan mas'uuliyiin kale ha ahaadaano, laakiin inta weli dadka magaaladan ku nool oo ah magaaladii ahayd iftiinka ummadda Soomaaliyeed, magaaladii ka tusaaleynaysa qarannimada dalka Soomaaliyeed, inta weli laga baqaayo inuu qarax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed caruurtooda markay diraysa ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadina la ka rabay maanan gudan. marka waxaa muhiim ah inaan fiirino maxaan haysanaa, tiro iyo tayo inaan u kala saarno. ma tiradaa nagu yar mise tayadaa nagu yar, ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqaynta nagu liidata, mise aaminaada nagu yar, ma fahamka naga xun, ma jidkan ka lunsanahay mise jihadan ka lunsanahay. su'aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad isweydiisaan sababtoo ah idinka ummadda Soomaaliyeed mas'uul ah gaar ahaan magaalada. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa in aad kulligeen idinkoo gudoomiyaashii degmada iyo saldhigyada booliska taliyaashooda ay taliyihii guud iyo gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisii inaad kulligiin ka wada shaqeynaysaan sugidda amniga idinkoo isticmaalaya qorshihiina cusub baad ula baxdeen darisaynta. laakiin darisayntu waa magac, shaqada iyo wada shaqayntu dad bay rabtaa inay ka shaqeeyaan. marar badanaa laga hadlay sidee baan shaqada hoos ugu daadejinaa, laakiin waxaa muhiima inaan horta fahamno cudurka nahaye waxa uu yahay inta aanan daawo raadsan. in marka caawa aad shirkan igu yeerteen oo aan idin dhegaysto oo aan maqlo waxyaabaha aad qabtaan ama dhibaatooyinka idin haysta waa soo dhaweynayaa. marka koowaad horta waan fahamsanahay meel walboo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda Soomaaliyeed kaliya maaha magaalada Muqdisho. waxaan aaminsanahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax laga qabto. siyaasadda dawladdeenu ay ku shaqayso oo hormuudka ka yahay madaxweynaheenu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda 3 bilood oo la soo dhaafay waxay ahayd 3 bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd. macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar.